Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada AMA Associates. Maanta waxaan diiradda saaraynaa activism, dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka ah iyo philanthropy, kuwa samafalka ah. Dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka ah iyo kuwa samafalka ahba waxay si kala duwan u saameeyaan horumarka iyo kobaca dhaqaalaha waddanka. Waxayna wadaagaan ahdaaf iyo natiijooyin ay labaduba ka midaysan yihiin. Activism, dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka ah waxay alaaba diiradda saaraan systematic issues, arrimaha u baahan nidaam ahaan in wax laga bedelo, sida siyaasadaha dawliga ah ama midka dhaqanka madaniga ah ee bulshada ka dhaxeeya. Dhaqdhaqaaqyada isbedel doonku waxay u doodaan policy change, in la helo isbedel siyaasadeed oo keeni kara horumar bulsho iyo mid dhaqaale oo mug leh. Tusaale ahaan, dhaqdhaqaaqyada looga hortagayo isir nacaybka iyo qabiilaysiga ama ninjeclaysiga, laguna dhiirigelinayo sinaanta muwaadinka, wadajirka bulshada iyo hortabinta adeegyada muwaadinka. Dhaqdhaqaaqu wuxuu abuuri karaa isdhexgal bulsho, isu socod sahlan iyo koboc dhaqaale oo muddo yar gudaheed lagu hanto. Ololaha ama dhaqdhaqaaqa diiradda saaraya environmental protection, tusaale ahaan dhowridda bii'ada, wuxuu qasbaa shuruuc hortabin siinaysa sustainability, dadaalada lagu dhowrayo jiritaanka bii'ada. Laakiin waxaa laga yaabaa shuruucdan inay kordhiso industry cost, kharashaadka koox farsameedka shuruudda ay qusayso ka baxaya. Dhaqdhaqaaqyada la xiriira ilaalinta xuquuqda shaqaalaha, mushaarka iyo duruufaha goobaha shaqada waxay saameeyaan ama saameyn ay ku yeelan karaan labor market dynamics, dhaqdhaqaaqa suuqa shaqaalaha, waxayna abuuri karaan isbedel ku yimaada employment practices, siyaasadaha shaqaalaynta, qadarka mushaarka iyo shuruucda qusaysa goobaha shaqada. Isbedeladan waxay saameyn karaan productivity, qadarka wax soo saarka, employee costs, qiimaha ku baxaya shaqaalaha iyo competition, heerka awoodda loolanka ganacsatada. Activism, dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka waxay ka qayb qaadan karaan ama ay wax ka bedeli karaan consumer behavior, dhaqanka macaamiisha. Campaigning, ololeynta waxay sare u qaadaa wacyiga bulshada ee ku aadan anshaxa iyo dhaqanka suuban. Waxay kaloo dhiirigelisaa ka hortagga haybsooca iyo isir nacaybka. Wacyigelintu waxay saameyn ku yeelanaysaa rabitaanka iyo taageerada bulshada iyo go'aamada waxqadashada. Dhaqdhaqaaqyada la xiriira dhiirigelinta hoggaan wanaagga, daahfurnaanta iyo mas'uuliyadda ganacsatada ka saaran ilaalinta danaha bulshada waxay saameyn ku yeelan karaan go'aamada iyo kalsoonida maalgashadayaasha. Tusaale ahaan, shirkadaha loo arko inay ilaaliyaan danaha bulshada waxay ku naaloodaan maalgashi mug leh oo ay bulshada qaybaheeda kala duwan ka helaan, halka shirkadaha kale ee loo arko inay ahmiyad siinin danaha bulshada ay la kulmaan diidmada bulshada, waxayna arkaan hoos u dhac ku yimaada dakhligooda iyo raasamaalka shirkadda. Waxa kaloo dhaawac culus ku yimaada sumcadda hoggaanka shirkadahaas. Waxaa muhiim ah dhaqdhaqaaq kasta oo han laga leeyahay inuu noqdo mid xaqa taageersan, dadka ololeynayana ay ka muuqato dhaqan, anshax, diin iyo usluub u qalanta bulshada inay taageerto fikirkaas iyadoo aan cidna lagu dulminaynin. Dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka ah ee bulshadu si baahsan u taageertay waxaa ka mid ah tusaale ahaan kuwii hore sida Axmed Gurey, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Xasan Barsane, Sheekh Bashiir iyo dhalinyaradii SYL. Inkastoo aan inta lagu soo koobi karin, waxaan tusaale ahaan u soo qaatay kuwa kor ku xusan. Intaba waxay u taagnaayeen gobonnimada ummadda Soomaaliyeed. Laakiin kuwii dambe in badan waxba lagama xusi karo intaan ka ahayn kuwii keenay burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee marnaba ku guulaysan waayey inay dib u hantaan dowladnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, philanthropy, dhaqdhaqaaqyada samafalka ah waxay gacan ka geystaan adeegyada bulshada ay u baahan tahay sida healthcare, daryeelka caafimaadka, education, waxbarashada, housing, guriyeynta ama hoyga, iyo community development, horumarka shacabka, taasoo keenaysa horumar iyo dhiirigelin toos ah inuu helo shaqsigii tabaaleysnaa. Kadibna waxaa sare u kaca wax soo saarka shaqsigaas iyo inuu naftiisa, qoyskiisa iyo bulshadaba waxtar u yeesho. Philanthropy, samafalku wuxuu tiir muhiim ah ka yahay economic productivity, koboca dhaqaalaha dalka, social mobility, abaabulka bulshada iyo poverty reduction,
dhimidda faqriga. In fund ama sunduuq dhaqaale samafal ah loogu helo research cilmi baarista iyo innovation hal abuurka wanaagsan ee waxtarka u leh bulshada waxay abuuraysaa baraarujin baahsan oo soo dedejisa kobaca dhaqaale iyo horumar baaxad leh. Samafalku wuxuu noqon karaa gaadiid lagu gaadhi karo guulo badan iyo horumar ay gaaraan sektarada muhiimka u ah kaabayaasha dhaqaale. Samafalku waxaa loo adeegsan karaa in lagu dhiso iskuulada, cusbitaalada, wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka bulshada iyo goobaha dadweynaha ay ku kulmaan sida parks, beeraha iyo libraries, maktabadaha. Maalgashigan lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale wuxuu sare u qaadaa wax soo saarka dalka iyo quality of life, tayada nolosha shacabka, taasoo qayb libaax leh ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha iyo horumarka guud ee dalka. Howlaha samafalku waxaa lagu kobciyaa garaadka bulshada qaybaheeda ee uu faqriga iyo aqoon la'aantu sida gaarka ah u saameeyeen, sababtu ha ahaato mid la xiriira deegaankooda oo ka fog magaalooyinka amaba ha ahaato mid salka ku hayso haybsooc bulshada uga timid. Waxaana loogu abuuraa fursado dhaqaalo ay ku maareeyaan noloshooda. Maalgelinta samafalayaashu ay maalgeliyaan local initiatives, hindisayaasha maxalliga ah, small businesses, ganacsiga yaryar, iyo social enterprises, ganacsiga bulshada waxtarka u leh. Samafalku wuxuu horseedayaa kobac dhaqaale iyo horumar waara oo ay bulshadu u wada siman tahay. Haddaba waxaan odhan karnaa dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka iyo kuwa samafalkaba waxay positive impact saameyn togan ku yeeshaan dhaqaalaha waddanka, sababtoo ah labaduba waxay dhiirigeliyaan social justice, sinaan ama u cadaalad samayn bulsho, environmental sustainability, badqabka iyo jiritaanka bii'ada, corporate responsibility, ilaalinta shirkadaha ay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran danaha bulshada, human capital development, horumarinta garaadka iyo awoodda aadanaha, community empowerment, awoodsiinta shacabka, iyo innovation hal abuurka. Halka activism, dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka, diiradda ay saaraan advocacy, u doodid iyo mobilization, abaabulid isbedel doon siyaasadeed iyo wacyigelin bulsho. Philanthropy, samafalku waxa laga helaa financial resources, ilo dhaqaale oo lagu garab istaago hindisayaasha khayriga ah ee lagu kaabo baahiyada kala duwan ee bulshadu tabanayso. Labadan dhaqdhaqaaq way isdhamaystiraan, waxay diiradda saaraan positive change si loo hanto isbedel bulsho oo togan, waxayna horseedaan horumar dhaqaale oo adkaysi lagu dhisay.